sawirkaasi waa been abuur weligeena calan ma huwan mid gaal iyo mid islaam toona waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala ku fadeexadeeyey dadka sameeyey ee faafiyey in waktigaa waddanka baanan joogin oo aan ku maqnaa cumro oo maka iyo madiine aan u dhexeeyey sawirkuna asal ahaan darsigeennan masjid rashiid aan ku dhignay minhaajka sawir laga soo qaaday weeye laakiin ayda waxaan la dhaahdo calanka noocaasi lagu raaciyey sawirka qofkii ugu horeeyay sheegay waxay dhacdaanoo jooga magaalada madiina oo ka soo baxay masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam salaad cishaay baan ku tukanay marka wax weyn uma qaadano markii dambe waxaan ogaaday oo kelmadan caawana igu kalifay in sawirkaasi meelo badan uu ka dhacayo xataa mawaaqic malaayiin qof oo carab iyo cajamba lihi ay ku jiraan in lagu faafiyey dadna ay rumaysteen xataa dad culimi ay ku jiraan alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin darsiga hortii waxaan odhan lahaa kelmad yar oo kooban oo ku saabsan sawir been abuura oo aada caalamka ugu faafay oo carabi iyo cajamba gaadhay sawirkaa qofkii ugu horeeyay sheegay waxay dhacdaanoo jooga magaalada madiina oo ka soo baxay masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam salaad cishaay baan ku tukanay marka ina la idhaahdo xasan baa halkaa igula kulmay markaasaa wuxuu igu yidhi sawir noocaasa baa lagaa faafiyey oo calankii yuhuudda aada huwan tahay marka wax weyn umaan qaadano waxaan ku idhi wax weyn maaha oo waxbaa inaga qaadi maysa ha isku hawlin baan ku idhi laakiin markii dambe waxaan ogaaday oo kelmadan caawana igu kalifay in sawirkaasi meelo badan uu ka dhacayo xataa mawaaqic malaayiin qof oo carab iyo cajamba lihi ay ku jiraan in lagu faafiyey dadna ay rumaysteen xataa dad culimi ay ku jiraan sawirkaasi waa been abuur weligeena calan ma huwan mid gaal iyo mid islaam toona waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala ku fadeexadeeyey dadka sameeyey ee faafiyey in waktigaa waddanka baanan joogin oo aan ku maqnaa cumro oo maka iyo madiine aan u dhexeeyey sawirkuna asal ahaan darsigeennan masjid rashiid aan ku dhignay minhaajka sawir laga soo qaaday weeye laakiin ayda waxaan la dhaahdo calanka noocaasi lagu raaciyey iftiraaga iyo been abuurkuna waa dembi weyn dhaqan islaamna ma aha ilaahay subxaana wa tacala wuxuuhi inamaa yaftari lkadiba aladiina laa yu'minuuna biaayaati illah wa ulaa'ika hum lkaadibuun waxaa been abuurka sameeya kuwaan ilaahay aayaadkiisa rumaysnayn beenaalayaal inay yihiin baanu ilaahay subxana wa tacaala uu sheegay markaa qof muslimi hadduu been abuur u badrheerhana macnaheedu waxa weeyaan wuxuu ku dayday kuwa gaalada ah oo dhaqankoodii buu yeeshay ha kaba duwanaado xagga caqiidada iyo iimaanka waxaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay arrinta noocaas oo ah been abuur qof in laga sameeyo ama laga faafiyaba dembi weyn oo naarta lagu mutaysto weliba meelaha u daran laga galo in laga galo sababa waman qaala fii muminin maa laysa fiihi askanahu llahu radqat alkhabaal xataa yakhruja mima qaal qofka qof muslima ka sheega waxaan jirin oo been abuura ilaahay naartuu geliyaa weliba wuxuu ka geliyaa meesha u xun oo halka dheecaanka gaaladu iyo kuwa naarta lagu cadaabaya uu isugu ururo saasaanu ku xukumaya ilaa uu ka toobad keenayo arrinta noocaasa uu ka dhex baxayo oo faraha uu ka qaadayo
كل أرنت نوع سينو أرين مقصودة وشدة دتك السمية بين أبور كاي كله نوا إسكعدي هاي وحيوصل عن تشويه مقعدل يسمع الحمين لكن وحاني وجين إن الرماها سيئين كو إلهي قعنته وجرا النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله هو الرافع الخافض عدوا إلهي سمعة إيا الشرف إيا الدرجة ويا وإلا هانسة دي عالم كودا ما يسوق تقال سيسمع الدلانة يوصور حميان بين أبورة وقصميان عدة إلهي سبحانه وتعالى ودليانا ودلي إسرانسة عالم كودا ما دي يسوق تقال إني أمانان مقع إني وصميان يدرجان والله إني ويالان هديها يسوق ديان لا شك إني تهي من جملة الإيذاء دبست مركا ذاتك مسلمين تعالى الدبو إلهينا كوا أرنتها السماينية وحوري والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا كوا ذاتك مركا مؤمنين تا كل باية دب آني مركا كسبان وسبتي ساني لهين kuwaasi dembi weyn oo ciqaab ay ku mutaystaan bay dusha ay u riteen waxa quri arinta noocaas aynu ka baranaynaa waxa weeye ama u muhiimsan in qofka muslimka ah wararka soo gaaraya gaar ahaan casrigan aynu ku jirro inuu aad isaga hubsado waayo waxa la sameynayaa maqal iyo muuqaal aan sal iyo raad toona aan lahayn marka qofku haddaanu hubsan wuxuu noqonayaa mid qeyb ka noqda faafinta beenta iyo been abuurka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kafaa bilmari kadiban an yuxaditha bikulli maa samic qofka waxaa been ugu filan haddaanu mid kaleba sheegin wax kastoo uu maqlaba isagoon hubsan ma runbaa ma beenbaa inuu faafiyo de wuxuu noqonayaa axad ulkaadibiin oo kii beenta sameeyey iyo kuwa faafinayaaba waa beenaalayaal marka isagoo haddaanu samayn faafintaa beentaa iyo warkaanu hubsan uu faafinayo beenaale ku noqonaya waajibku waa in dadka muslimiinta ahi ay ku edebsadaan oo dhaqan ay ka dhigtaan آدابت إلهي سبحانه وتعالى وأمره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقفك مركا فاسقة فسق قلقوق يهي إلا وركي ساعد كلو مرخاتي فرطل هلو إن أن وركا لا أقبلين وأن وحبل قد السن وأن لفافن ساسو إلهي نامر قفك مجهول كي أن لقرانا هين isna saasoo kale warkiisa lama aqbalayo bal xadiidka uu soo wariyo ayaan la aqbalin waayo qofka warkiisa si loo aqbalo oo axkaam adduunye kuwa aakhiraba loogu dhiso waxa shardi u ah inuu yahay qof looga qaateena marka taasina waxay ku imanaysaa inuu ka maran yahay fisqi iyo wixii la halmaalay warkiisa in la aqbali waayo keenayay qofkii in la garanayo sifaadkii wanaagsanaa warkiisa lagu aqbali lahaa lagu garanayo taasay ku imanaysaa marka warka noocaas iyo sawirkaas samayska ah ee la faafiyey kolay dad fara badan oo muslimiinina ifkiga iyo iftiraaga faafintiisa markaa qeyb bay ka noqdeen kuwa markaa axkaam ku dhisay hadallana arrinta noocaas ay ka yeedhsiisayna waa jiraan waxaan leeyahay ma waad saamaxan tihiin anigu kulle waan idin cafiyey laakiin arrintaasi cashar iyo dersi ha idin noqoto iska hubiya wararka markaa idin soo gaadhaya aadaabta iyo dhaqanka ilaahay subxaana wa tacaala uu ina farayna dhammaanteen baa aynu ku dhaqanno